waan idin salaama dhammaan asxaabta ku xiran janalka mucaashiq official meel walba aad joogtaan. Sidee ku noqon karaa qof bulshada dhexdeeda karaamo ku leh, ama sidee u noqon karaa qof bulshada dhan ay wada jecel yihiin? Waxaa muhiim ah inaad ahaato qof ama shakhsi ku caanbaxay wanaagga, dulqaadka iyo maskax furnaanta, isla markaana bulshadu ku soo hirito oo marka uu maqan yahay la tabo laguna xisaabtamo marka laga hadlayo arrimo quseeya bulshada aad meel kuuda nooshihiin. Haddaba si aad ula noolaato bulshada, iska ilaali dabeecadahan soo socda ee lafdhabarka u ah noloshaadu inay qiimo yeelato. Midda koowaad waxay tahay ka fogow foodada badan iyo xishood la'aanta. 2. Su'aalaha badan. Su'aalo badan oo aan shaqadaada ahayn oo aad weydiiso dadka, sida xagee u socotaa, marka uu qofku kuu jawaabo oo tusaale ahaan uu ku yiraahdo waan soo xaajo gudanayaa, ha isku dayin inaad qofka sii baarto arrimihiisa isaga u gaarka ah oo ha dhihin xaajo noocee ah. Taasi waxa ay sababaysaa inuu qofku u keento dhibaato gaarsiisan ilaa heer aad ku qasabto inuu been sheego. 3. Balanka oo aad ka soo habsaanto. Ogow in balantu ay tahay shayga keliya ee haddaad ilaaliso kaa dhigaya qof ay bulshadu ku soo hirito oo sharaf iyo karaama ka mudan. Mahmaayo Soomaali ah ayaa waxay leedahay balanka bax waa diin la'aan. Haddaba ogow balantu in ay tahay shayga ugu muhiimsan ee kaa dhigayso in ay ummaddu ku aaminto. 4. Midda afraad waxa ay tahay haddii lagu marti qaado keliga, iska ilaali inaad soo kaxaysato qof kale, waliba qof aysan isku fiicneen qofka ku marti qaaday. Waxaa laga yaabaa in aad dhibaato ka dhex abuurto labada qof. 5. Midda shanaad waxay tahay haddii aad timaado guri dad kale leeyihiin, ha fadhiisan meel aad guriga dhan ka wada arki karto. Isku day in aad ka fogaato cawrada ama boogaha dadka aad martida u tahay. 6. Midda lixaad waxay tahay ha fadhiisan meel aad dadku dhibsanayaan sida musqulaha ama suuliyada hortooda oo aad eegto dadka ka soo baxaya. 7. Midda toddobaad waxay tahay ha ku dheeraanin fadhiga qofka xanuunsanayo oo aad soo boqotay, laga yaabaa inuu hadalka badan dhibsanayo ama xaajo uu leeyahay. 8. Midda sideedaad waxay tahay iska ilaali booqashada badan ee asxaabtaada. 9. Dadka ha kala hortagin hadallo ay dhibsanayaan. 10. Dadka ha ku salaamin gacmo qoyan. 11. Midda 11aad waxay tahay iska ilaali marka aad dad kale wax la cunayso ama aad saxan keliya wax ku wada cunaysaan ina aad samayso waxyaaba anshaxa ka baxsan, sida inaad hilib ama qudaar ka soo qaadato meel ka dheer. Ha ka sheekeynin waxyaabo dadka in ay lalabo dareemaan u keeni kara. 12. Midda 12aad waxay tahay dadka aad marti qaaday ha kala raayin waxaad ugu tala gashay. 13. Ha dhegaysanin dad sheekaysanaya iyagoo ku dhibsanaya. 14. Luuqad kale ha kula hadlin dad aad isku luuqad tihiin ama isku af tihiin. 15. Markaad dad la hadlayso qosolka badan iska yareey si aanu hadalkaaga nuxurka u beelin. 16. Midda 16aad waxay tahay ha ka bixin cuntada iyadoo dadka aad marti qaaday weli cunayaan. Fadlan aad ayaa u mahadsantihiin dadka ku xiran janalka mucaashiq official, gaar ahaan dadka subscribe-kana saara. aad ayaa u mahadsantihiin. waxaa nagu dhiirigelinaysiin inaan hawsha idiin hayno si laba jibarno. fadlan sii share gareeya muuqaalkan. haddii aad nagu cusubtaana janalkan subscribe dheh. aad ayaa u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddex.